Soomaaliya يوم maalintii barita ee sufura muddoona shirki amniga qaranka Soomaaliya kaasoo ay qayb gal doonaan madaxda sarsare ee dalka Soomaaliya oo Korea madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Abdullaahi Farmaajo ee wali bankoreyntii magaalada Baydhabo hareeraysa wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Waraw Karow oo garoonka diyaaradaha deegaanka Shaatiga International Airport ee ka dhawaayeen waana Korea madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka iyo ururada bulshada rayidka ee ka dhaqan gudaha magaalada Baydhabo intaas kuleed ra'iisul wasaaraha wali ballan gudbiga xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya saacado kuleedna wali bayana magaalada Baydhabo hareeray madaxweynaha maamulka Puntland Abduwali Madal Awgaasa iyo madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Ducaale Geele Xafi iyo mas'uuliyiin kale oo darar wafdiga oo ku mid hay madaxda xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakira waliba garoonka ka dhawaayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee mas'uuliyiin ku tirsan dawladda iyo bulshada rayidka intaas kulan waliba si wada jir oo la hadlan warbaahinta soona in ka horeyntii warbaahinta la hadlay waan soo qaaday hadal soo dhaweeyay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan شركة الاسمية مهرجان العين والشركة الصومالية أنفعال وأنا أتكلم كل جديد كأوضاع كان سلوا وانتقلت استراليا للمهرة واسع الصومالية وجين بالتهايو سيئة مهمة واسع الوقت العالمي يلقى أن الأنفعال لما دور الفدرال السوق يقول اسمه الوزارة ممكن يشوف ما بيني ما بعمل سوق عليه أنا من السوق هو هنا في هو الكلام هذا من سنتين سوق وسلويين mar walba aad iyo aad u mahadnaqaynaa soo weerarada muuqato halba iyo Soomaalidu ku mahadsanyihiin waxaa tahay loo soo kordhay halkaas uu yimid madaxda haddana waxaa la soo laabtay Baydhabo in qodobka shirkii amniga qaranka madaxda soo geliyay waa filaynaa sida madaxweyne xasan uu sheegay shirkaas oo mid dhaqaale oo Soomaaliya qorshe iyo hoosoo aad iyo aad markale waana nahay dad saddex isbuuciyada inaan ku soo laabanay Baydhabo maalintii hore sidii loo soo dhaweeyay maanta waa ka sii dareed aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabka iyo madaxweyne Shariif iyo inta la shaqeyso sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa anaguna waxaan rajeynaynaa ilaahay idinka mar baan baro annagu martigelin doonaa wax annaguna insha allah waxaan rajeynay waa higsanaynaa ayaantaan gaari mayne koonfur galbeed laakiin waa higsanayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin rag iyo dumar maaragtay in allaaliya inta la soo dhaweysay iyo inta magaalada joogtaba iyo inta xagada joogta aad iyo aad baad u mahadsantihiin media laftiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baad u farkumoontihiin baynama maaha inta kaloo niyo saa uma uradaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin baynama waa iska maaragtay waa meel aad u soo dhaweyn fiican aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa aad baad maaragtay ugu fiicantahay soo dhaweynta iyo martigelinta runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa salaamantiin annaguna waxaan rajeynaynaa insha allah marar badan in gobollada ay isu socdaan oo gobol marla tago oo maaragtay iska adeegsano mid kala higsado si aan u soo sibano meelka hore wadagaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa salaamantiin ما بعد هذا الفرح صنعي كنتي إماتين كان من بيدا بتشناي وهذه عندنا لكوس ودوين سودوين وقامين هي مدويني وفوق البيت يا شريف يو مام وفوق البيت كلا هارين بالريال كمان
isu-imaatinka la isu yimid isu-imaatin Soomaaliya horumar iyo baraare iyo bashbash ugu horseeda amnigeedana wax wanaagsan ay iska bedelaan yacni murugana ku keena shabaab iyo wixii la mid ah oo dalka Soomaaliya dhibaato badan ku haya in isku meel looga soo wada jeesan doono taas ayaan rajaynaynaa waa ku faraxsannahay runtii aad iyo aad maanta amniga Soomaaliya hal meel looga wada hadlo aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa sidaa loo mideeyey in meel fiican lagu furi doono ayaan rajaynaynaa daqiiqado ku heedna waliba magaalada Baydhabo hadeeray wafdigiisu xarka oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Mad Abdullaahi Farmaajo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiiro oo si weyn lahan ka dhawaay magaalada Baydhabo waliba dhawaayo ka madaxweyne Farmaajo qayb qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Walaal Karow iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin ku tirsan dowladda Koonfur Galbeed ee bulshada rayidka ka dhan magaalada Baydhabo iyo saraakiil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaas kulad markii mas'uuliyiinta la halgalbiya runta madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo waliba isla marxantaasi warbaahinta faahfaahin ku saabsan madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Nuuruddin Yuusuf Abuukar Gaam ayaa faahfaahin soo kubiyay xilligii safar mulay shirka amniga iyo mas'uuliyiinta geedka hadeertay magaalada Baydhabo bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaray madax kala duwan oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Xaaf sidoo kale waxa soo gaaray Sheekh Shaakir oo xukuumadda golaha wasiirada ee Galmudug madax u ah sidoo kale waxa soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada injineer Yariisow waxa kale oo soo gaaray magaalada Baydhabo wufuud aad u kala duwan sida wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga dowladda federaalka sidoo kale waxa soo gaaray madax aad u ballaaran waxaana garoonka shaadguduud Airport ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabduqaadir Shariif Sheekhname gudoomiyaha ku-xigeenka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya labaad mudane Aways iyo dhammaan golaha labada gole ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la filayaa in shirka looga hadlayo arrimaha guddiga amniga qaran oo ka furmi doono magaalada Baydhabo kaas oo la filayo inuu maalinta bariya uu ka furmo waxaana la filayaa inay soo gaaraan madaxweyne Axmed Madoowe iyo madaxweyne Waare hadduu Ilaahay yiraahdo wufuud aad u kala duwan baa hadda ku soo qulqulaysa magaalada Baydhabo wasiiro heer federaal wasiiro dowlad goboleed iyo sidoo kale wasiiro ka kala socdo dhammaan dowlad goboleedyada waxaana la filayaa inay soo gaaraan qaybaha baasha caalamka midowga Yurub iyo qaab ka socda ama erga ka socota Mareykanka oo ka wakiilka iyo urur goboleedka IGAD dhammaan waxa la filayaa inuu halkaan ka furmo shirkii maamul goboleedyada magaalada Baydhabo dowladda kumeel gaar u ah dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay maanta martigelinaysaa dhammaan madaxdii dalka ugu sarsareysay heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxayna inta badan maanta ay diyaar u tahay inay soo dhaweeyaan shacabkooda iyo madaxdoodaba wafuud ka kala imaanaysa gobolada dalka waxa ugu horeeya caasimadda dalka magaalada Muqdisho marka waxaa la filayaa in shirka uu ka furmi doono halkaan shirkan uu ahaan doono shir loogu hadlaya arrimaha amniga guud ahaan dalka Soomaaliya marka waxaan rajaynaynaa inuu shirka ku furmi doono si nabad ah oo ku soo dhamaan doono si nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo marka wariyaasha dhammaan walba ay joogaan guud ahaan gaar ahaan wariyaasha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dhibaatada ay u mareen iyo sidii ay u soo dhaweynta ay ugu qayb qaateen iyo dhibka u soo mareen wariynimadaba waa ugu mahadcelinaynaa waana ku mahadsantihiin dhammaantiina waxaa idin leeyahay shaqo wacan shaqadana ha ahaato shaqo insha Allah loogu adeegi doono shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed aad baa u mahadsantihiin waxaan yaana ka tagin waxa soo dhaweynta ka mid ahaa madax heer gobol iyo heer degmaba way ku jireen sidoo kale agaasimayaasha guud dhammaan taliyaasha ciidanka
taliyaha ciidanka ugu sareeya dowladda federaalka Soomaaliya ee qaybta lixdamaad iyo dhammaan saraakiisha kale marka aad baa u mahadsantihiin وفودوجك هدرت المجالات بيضاوية رمتي قبل كباية ولي بيكمل مسؤولين كالفلاي إن صدر رسمي مالنت بريتان كفرم الشركة أمني قرن الصوماليات ومالنت بريتان كفرم مدن كل مجالات بيضاوية رمتي قبل كباية وفودوج أو سكمدة مدحوينا حكومة الفدرالية الصومالية مدن مدى عبد الله فرماجة يرس وزراء حكومة دي مدى هذا ما حكومة الصومالية ويعتقد كل مجالات بيضاوية رمتي قبل كباية مالنت بريتان الفلاي صدر مدى هذا حكومة الدولة كفر قلبت الشجاعة إن مالنت بريتان وسفر مشتكاسين فيصل حسين KJS TV فيلا كونفور قلبت